Tom and Jerry waa filim kartoon aad iyo aad u da'weyn waxa qaybtiisii ugu horeysay la soo bandhigay sanadkii 1940 qaybtii ugu dambeysayna waxa la sii daayay 2014 filim kartoonkan waxa laga sameeyay in ka badan 164 xalqadood in ka badan 35 xalqadood oo kamidana waa la tirtiray waana laga mamnuucay badanka dawladaha caalamka sababta loo daawan waayay ee lagu mamnuucay waxa ku dhacday asbaab kala duwan mararka qaar waxa sabab u ah inay xalqada ku jiraan muuqaalo dhiig leh oo aan u munaasib ahayn inay carruurtu daawadaan mararka qaar koodna waxa sabab u ah in fariimo qarsoon ama fariimo sir ah ay ku jiraan xalqada iyo xitaa mararka qaar ay sababtay inay xalqada ku jirto muuqaalo cunsuriyada iyo in la takooro koox kamid ah kartoonka ku jira filimka haddaba waxaynu maanta muuqaalkeenan kaga hadlaynaa bar ka mid ah xalqadaha cabsida ah ee laga dhilidgareeyay filim kartoonka Tom and Jerry laakiin intaynaan u gudagelin ha ilaawin inaad like nagu dhiirigelisid kanaalkana noo subscribe garaysid mahadsanid xalqada koowaad aynu soo qaadayna waa xalqad la sii daayay sanadkii 1949 ugu horeyntii xalqadan waxa laga wada daawaday TV-yada laakiin markii la daawaday kadib waxa mamnuucay dawlado badan sida UK, Brazil iyo qaar kamid ah dawladaha Carabta waxaan filayaa inaad idinku daawateen xalqadan waxa lagu magacaabaa Heavenly Boss bisadii samada waxayna ku daawanaynaa sidaynu inta badan ku daawanay xalqadaha musalsalka Tom and Jerry xifaaltanka ka dhaxeeya bisada iyo jiirka xifaaltankoodaasi markuu socdo waxa dhacaya in qalabka muusiga piyaanada ku soo dhaco bisada kadibna ay dhimanayso kabacdi waxaynu arkaynaa jismigii iyo ruuxdii Tom oo kala baxaya ruuxdii Tom oo wax weeg jarantaro elektarooniga raacaysa samadana fuulaysa kadibna ay gaaraysa meeshaas oo ah jannadii laakiin ma galayso jannada qof kadinka taagan baana bisada u diiday inay gasho jannada waxaanu ku sababeynaya diiditaanka loo diiday inay gasho jannada dambiyadii faraha badnaa ee sanadaha badan bisadu jiirka ku sameyn jirtay waxaanu ku oranayaa si jannada lagugu ogolaado inaad gasho wax laga maarmaan ah inaad jiirka cafi soo weydiisato oo warqada ka soo saxiixdid waxaanay haysataa hal saac oo kaliya si ay codsiga ugu soo fuliso haddii aanu jiirku bisada ka saamixin dambiyada ay ka gashay inay bisadu ku waaraysa naarta kabacdi qofka kadinka jannada fadhiya waxa uu tusayaa bisada muuqaalka naartu nooc uu eeg yahay waxaana ka muuqda gudaha naarta wax midab cas oo geesa leh waxaanan odhan karnaa waxaasi waa ibliis kabacdi bisadii waxay ku soo laabanaysaa adduunkii iyadoo ka duulaysa halka saaca loo qabtayna waxay markiiba u tagaysaa jiirka iyadoo isku dayaysay inay warqada ka saxeexdo isku dayo badan kadib jiirku wuxuu ogolaanayaa inuu saxeexo warqada waanu saamaxayaa bisada laakiin halkaa waxaynu ku ogaanay inuu waqtigii ka dhamaaday bisada Tom waxay ku dhacaysaa dhulka hoostiisa waxaanay galaysaa naarta dhammaantiin waxaynu wada garanaynaa in Tom and Jerry uu yahay musalsal majaajilo oo carruurtu ku madadaalato laakiin waxa la yaab noqotay in xalqadii ugu dambeysay filimkani ay noqoto murugo halkay ka ahaan lahayd mid lagu qoslo oo majaajilo ah waxaanay noo muuqda jiirka iyo bisada oo wadada tareenka fadhiya oo doonaya inay istilaan bal aynu dib u yara milicsano soo eegno sababta ay isku dilayaan xalqadu waxay ku bilaamatay si nabad ah inkastoo ay markasta cul yihiin haddana Tom iyo Jerry waa heshiis markan guud ahaanna waxay heshiis ku gaadheen inay nabad ku wada noolaadaan sidii u joogeen Tom ayaa arkay bisad naag ah kadibna uu jeclaanaya Tom waxa uu sameeyaa wax kasta kaliya sidoo qalbigeeda u hanan lahaa laakiin dhanka kale bisadu waxay Tom ka dhiganaysaa wax lagu maadsado waxaana kaga ciyaaraysaa karaamada markasta oo uu hadiyad u keenana mid kale ayaa u keenay hadiyad ka fiican kana qaalisantu uu keeno mar ayuu is oranaya Tom ka farxi jacaylkiisa waxa uu soo qaadaya ubax balse markuu soo gaaro waxa uu arkaya iyadoo loo keenay oo ku dhex jirta ubax weyn haddana isma dhiibay waxa uu soo kaxaynaya gaari laakiin mid kale oo ka gaaray qurux badan ayaa ka qaadaya gabadhii silic iyo rafaad dheer kadib Tom uu rajo beelayaa waxaana ku dhacay niyad jab ugu dambeyntiina waxa uu go'aansanayaa inuu istilo waxaanu fadhiisanayaa wadada tareenka isla waqtiga dhacdadu Tom ku dhacday Jerryna mid lamid ayaa ku dhacaysa Jerryna xafad yar buu jeclaanayaa laakiin way ku daadinaysaa weydiidaysaa waxaana ka raacaysaa mid kale halkaas ayuu isna ku niyad jabayaa waxaanu fadhiisanayaa wadadii tareenka ee Tom fadhiday sababta murugada leh baana ku dhamaanaysa xalqadu sanadkii 1943 waxa telefishinada wadanka Mareykanka laga daawaday xalqad kamid ah Tom and Jerry oo argagax leh xalqadan waxa la daawaday hal mar oo kaliya kadibna waa la dhilid gareeyay waxaana loo tirtiray cabsi ay carruurta ku keentay awgeed xalqadu waxay ku bilaamaysaa bilow iska caadi ah sida xalqadaha kale ku bilowdaan waxaan aragnaa Tom oo ku jira guriga nin markasta cadhaysan ninka cadhaysan markasta oo uu siraha gal qolka hoose ee gurigiisa waxa uu arkaa Tom oo hurda afaafka hore ee qolka
kadib wuu xanaaqayaa Tom ayuu qabanayaa waanu garaacayaa waxaanu ka mamnuucayaa inay mar dambe seexato afaafka hore ee qolka hoose waxaanu Tom ku tuurayaa qol kale isla waqtiga Jerry waxa uu maqlayaa hadalka dhex maraya Tom iyo mulkiilaha guriga Jerryna waxa uu damacsan yahay qorshe xun oo Tom dib ugu celinayo qolka hoose si uu ninka mulkiiluhu mar kale u dilo dabcan maalinkii labaad ninka mulkiiluhu Tom ayuu arkayaa iyadoo halkii hurda uu cadhoonayaa waanu garaacayaa mar kale Jerryna meel dheer ayuu ka soo fiirsanayaa sida loo garaacayo uu dambeyntiina ninku waxa uu Tom ku tuurayaa qolkii dhulka hoose Tom aad ayuu baqdin ooyaya kadib Jerry ayaa maqlaya oohintiisa waxa uu imanaya qolka dhulka hoose isagoo sita midi waxaanu halka ku dilayaa Tom isagoo si weyn u dhoola cadeynaya waxaan xalqadu ku dhamaanaysaa isagoo Jerry albaabka guriga suray calaamada for sale ama waa iib imika waxaad isleedihiin xalqadan waa been oo marna kama mid noqon fil kartoonka Tom and Jerry aniguba saas ayaan islahaa balse waxaan ogaaday in xalqadani ka mid ahayd Tom and Jerry waxaana kashafitaankeeda iyo in la tirtiro sabab u ahaa shaqaale lagu magacaabo Jane Datish oo ahaa sameeyay iyo qoraa filin kartoonka Tom and Jerry qaybo badan ka qoray kana sameeyay ninkan Datish ee shaqaalaha ahi muu jeclayn shaqadiisa sameynta filin kartoonka Tom and Jerry sida awgeed waxa uu qorsheynayay inuu ka tago shirkadda goortay ahaataba laakiin waxa uu heshiis kula jiray shirkadda waxaana mamnuuc ahayd inuu ka tago shaqada sida awgeed waxa uu sameeyay xalqadan argagax leh ee tayadeeda hooseyso si ay shirkaddu u fasaxdo heshiiskiisana u laasho kabacdi sidii dhacday markii xalqadii la daawaday shirkadii shaqadii ay ka eeday ninka xalqadanna ilaa maanta way tirtiran tahay shirkaduna ma doonaysa inay cid aragto goosgoos yar oo kaliya ayaan ka tusnay xalqadan la tirtiray maxaa yeelay iyadoo dhameystiran waan heli weynay